iyadoo lagu guda jiro waqtiyadii xilli roobaadka guga waxaa magaalada Burco ku badanaya goobaha biyo qabatinka ah ee ku yaala bartamaha magaalada sidaas darteedna ay ka dhalan karto cudurro badan haddaba waxaa maanta wax ka weydiinay madaxa fayadhowrka wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Faarax Cali Dalmar ugu horreeyna waxa uu bulshada ku dhaqan magaalada Burco ugu baaqay inay ka taxadiraan oo ay iska hagaajiyaan deegaanka ku xeeran waa su'aal aad u fiican weeye waxaan baaq u dirayaa shacabka gobolka Togdheer qaybihiisa kala duwan waa xilli roobaadkii waa run waxaan doonaynaa in wacyigelin aad u ballaaran u gudbino badanaa madax fayadhowrku waxa uu badan yahay waa wacyigelin waa kortagay ka daba tag laakiin waxaan ugu duuminaa wacyigelin in ay iska ilaaliyaan xilliyada roobka qashinka iyo biyaha ay isdhex dhigayaan ama ay meelahan bulacadaha ama wadooyinka fadhiistaan biyaha fadhiisto inay iska ilaaliyaan maalin waxaan sameynay goobo badan oo magaalada bartankeedii baan tagnay koloriin baan ku ridnay biyaha wasakhaysan ama biyihii hore meesha ku jira ha ahaadaan ama kuwii gadama kadib ha yimaadaan ha ahaadaan nuurada baa meel ku shubnay meel koloriin baan ku shubnay in badan waa la aasay shacabkan waxaan aad u faraynaa inay inta baaqiga iska aasaan يعني gacmo wada jir wax ku qabtaan intooda badan iska aasan inkastoo ay dawladda hoose ay lahayd barnaamijkaasi oo tuulkii gacanta ku hayaan inay ka aasaanna ahayd waajib ahayd shaqadoodiina ahayd laakiin haddii ay haleeli waayeen ama ay ka buuxin kari waayaan dadku waxaan aad iyo aad u interest garaynaa magaalada bartankeeda haday tahay iyo xaafadaha haday tahay inay iska aasaan biyaha qurmay ee fadhiistay ee xanuunka ka dhici kara ama ka dhalan kara badana biyaha haday ku jiraan muddo week ku jiraan ay cagtawna ku badan tahay qashinkana ku badan yahay xanuuna ka dhalan kara marka aad iyo aad waxaan ugu sheegaynaa shacabka ugu sheegaynaa ama fariintan ugu diranaa inay iska ilaaliyaan ama ay ka hortagaan ama ay xilliyada qashinka hatta waxa jirto aan aragnay guriga hortooda qashin la dhigto oo intuu ka soo qaado qofkii ay guriga hortiisa dhiganaya kabacdi roobkii baa ku daaya xanuunkina halkaas ka dhalanaya geesta kale waxa uu meheradaha cuntada lagu cuno ugu baaqay inay ilaaliyaan fayadhowrka deegaanka ku xeeran maadaama oo ay bulshada ka iibinayaan cunto bisil waxaana ka mid ah hadaladiisii waxaan aad iyo aad u arkay meelahan biyaha iyo halkan lagu meerayo koobabka iyo nidaamkan wixii oo isdhex yaala niyo waxa ayaan dara ah 3 litir oo biyo ah bay koobabkii waxa lagu meeraa lagu celceliyaa xanuunadii ayaga haya koobkan afka jaban iyo koobkan burbursan iyo siyaabaha noocaas oo dhan xanuunada way ka dhashaan marka waxaan faraynaa meelahan shaaha laga cabo ee maqaaxiyaasha bulshada iskugu timaada in ay koobabkooda iyo falaashadooda iyo weelka wax ku xalayaan hagaajistaan haday hagaajisan karin waayaana ganaax baa ku dhacayo waa la ganaaxi doonaa weelka lagu meerayo saacad ama 30 daqiiqo in biyaha la bedelo ayaa muhiim biyo daadanayo oo daraan leh ayaa yara qurux badan in lagu meero biyo kulul ayaa meelo qurux badan way bulshada meelaha iskugu timaadana xanuunaha noocaas waa lagu kala qaadaa hatta biidka lagu kala qaadaa waxyaabo xanuun badan baa lagu kala qaadaa أحمد نور عيسى محمد السمراوي وكيل وريدك تلفزيون كعالمي قاية سبأسا مقالة برعو.